dib markuu korka kaga soo dhiftay waa ku cadaadinayaa gudaha ayuu geynaya caqligiisana waa isticmaala waa ku daloolaya markan gudaha ayuu geeyo waa ka soo saar waaya kan kale waxa lagu tilmaamaa xayawaanka ugu doqonsana abid kaasoo aan geed kori karin maanta waa isku dayayaa dhabarka ayuu geed kale ku tiirinayaa waa sii koraya hadda waa suurtagal weyday dusha ayuu fiirinayaa markani waa iska soo dhaadhacay oo uu kori kari waayay doqon dhowriyey ayaa soo weeraray hal mar hadayba ayba ahayn waa u joogsaday kan waa iska caabiyey hareeraha ayay kasoo wada joogsadeen isagoo uma dhaqaaqayo hadduu u dhaqaaqo waxaa dhici kara in dhowr qorob loo kala gooyo geesinimadii oo ay waa istaagayaa wax welwelina ma muujinayo iyaguna dib ayay uga wada joogsadeen hadda waxay u badan tahay in uu la wareegay maamulkooga geesinimo ugu dambeyn keebaad la dhacday qisooyinkii aan kula soo wadaagnay keebaad is leedahay uu taabanayaa ama wuxuu noqonayaa fiideoga toddobaadka la wadaag walaalahaga kale si iyakuna inoogu soo biiraan haddaad hore inoogu soo biirina falow saaro si ay kuu soo gaadhaan dhammaan fiideoyaasha aan kusoo gudbino isla goobtani